gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa maanta gudoomiyay shirka guddiga joogtada ah ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana kulankan ka qayb galay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka Cabdiwali Ibrahim Muudey habdhowraha golaha shacabka iyo xogayaha golaha xubnaha guddiga joogtada ah ayaa ka hadlay waqtiga uu furmayo kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka iyo sidoo kale ajendayaasha horutabinta u leh golaha shacabka kalfadhigan iyo shuruucda hortaala kulanka maanta ee guddiga joogtada ah ayaa lagu go'aamiyay waqtiga uu furmayo kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka oo ay in 27 bisha Maarso oo ku beegan maalinta Arbacada ah uu si rasmi ah u furmi doono kalfadhiga shanaad ee golaha sida uu warbaahinta u sheegay xogayaha guud ee golaha shacabka Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux maanta oo Khamiis ah waxaa dhacay guddiga joogtada ee golaha shacabka ayaa kulankoogii koowaad ku qabsaday xarunta golaha shacabka waxaana gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa koowaad ayaa joogay waxaa ajendaha uu ahaa laga hadlayay mudaynta waqtiga la furayo golaha shacabka waxaana la isku afkartay in ay noqoto 27ka bishan aan ku jirno ee Maarch oo ah maalin Arbaca ah marka dhammaan xildhibaanada golaha shacabka meel kasta joogaan waxa la ogeysiinayaa inuu goluhu furmayo 27ka bishan Maarch sida awgeed cidii banaanka joogta xildhibaanada banaanka joogaana ay soo galaan xildhibaanada guduhu joogaana ay ogaadaan inay tahay 27ka bisha Maarch furitaanku